الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى waxaa loogu dhawaadaa acmaal fara badan oo kala duwan baa loogu dhawaadaa. waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado ayaa waxaa ka mid ah in dadka muslimiinta ahi ay iscaawiyaan oo kooda roon ee wax haystaa uu ka warhayo isla markaana uu caawiyo kooda laga roon yahay ee baahan ee duruufi ay haysato. waanu ka warhaynaa guud ahaan caalamka xanuunkan saameeyey iyo gaar ahaan walaalaheena Soomaalida ah ee waxa weeyaan meelo fara badan oo dhulalka Soomaalidu ay degaan ku nool dhibaatooyinka soo gaadhay ee xanuunkan iyo dhibaatadan caalamka soo gaadhay ee saameysay dhibta ka soo gaadhay waynu ka warhaynaa. waxaa laynooga baahan yahay dad muslimiin ah haddaynu nahay inaynu isku kaalmayno, inaynu iscaawinno keena roon ee waxyaa inuu ka warhayo kana warqabo keena baahan ee duruuftu iyo dhibaatooyinku ay saameeyeen. ilaahay baa jalla wacalaa yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa, isku kaashada oo isku kaalmeeyo isku caawiya wanaagga iyo alla ka cabsiga. waa in laisku dhiirigeliyaa oo laisku booriyaa caawinta dadka walaalaheen ah ee baahan la caawinayo. waa in dadka walaalaha ay muslimiintaha guud ahaan ay iska warhayaan. waa in qaraabadu ay iska warhayaan. waa in jaarku iska warhayaa. asxaabtu waa inay iska warhayaan. mid walbaaba walaalkiisa u dhow iyo walaalkiisa meel la degan waa inuu ka warhayaa. haddaynu inagu iscaawinno cid kale oo ilaahay jalla wacalaa aan ahayn u baahan mayno. innagaa isku filan bacda allaahi subxaanahu wa tacaala. walaalayaal aynu ogaanno inta aynu caawinno walaalaheena baahan in ilaahay jalla wacalaa inagana ina caawinayo. waa ka rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi. ilaahay jalla wacalaa addoonkiisa waa u caawinayaa intuu addoonku caawiyo walaalkiisa kale ee muslimka ah. wuxuu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaas anfacuhum linnaas. waxaa dadka ugu khayr badan uguna wanaagsan kooda ugu waxtarka badan leh. waxtar fara badan iyo nafci badan ayaa laynooga baahan yahay oo kaalmaynta walaalaheen aynu u kaalmaynayna ah. aynu ogsoonaanno janno ilaahay jalla wacalaa in lagu galo caawinta walaalaheena baahan aynu caawinayno. qofka muslimkaa ee taqiga ah ee alla ka cabsiga lagu yaqaana tilmaamihiisay ka mid tahay xilliguu wax hayo ee uu barwaaqaysan yahay iyo xilliguu dhibaataysan yahay labadaba inuu wax bixiyo. dadka muttaqiinta marka laynoo sheegay tilmaamahoodii waxaa laga dhigay aladiina yunfiquuna fi sarraa'i waaddaraa. waa kuwa wax bixiya xilliga barwaaqada ay ku jiraan iyo xilliga dhibaatooyinka iyo culayska ay ku jiraan labadaba waxbay bixiyaan. walaalahooda kale ayaabay caawinayaan. saasaa rabbi jalla wacalaa uu tilmaamay. walaalayaal wuxuu nabigeennu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jannaadka ilaahay jalla wacalaa dadka loo diyaariyey inay ka mid yihiin liman atcama atacaam, cidda baahan quudisa iyo raashin iyo waxay u baahan yihiin siiya inay ka mid yihiin waxyaabaha dadku janno ay ku galaan ee janna waxa weeyaan lagu mutaysanayo. waxaa laynooga baahan yahay inaynu aad iyo aad iskooga warhayno. haddaynu iska warhayn weyno xilliyada noocanaa goormay dadku iska warhaynayaan, goormay iscaawinayaan. walaalayaal ilaahay baa jalla wacalaa inagu caawinaya. ilaahay baa inoogu dembi dhaafaya. ilaahay baa inoogu naxariisanaya. ilaahay baa waxaynu haysanno inoogu barakaynaya. yaynaan mooganaan oo yaynaan dayicin walaalaheena muslimiinta ah. kii saka bixinayaa sakadiisa waxa weeyaan ku caawiyo waajibka ah ee xoolihiisa ka saaran. kii sadaqa oo xoolo kale haysta oo wax baxsan kara sadaqaadkiisa walaalihiisa muslimiinta ha siiyo.
waxa uu bixinayaa wax yarba ha noqdo maanta qof waloo inaga midaa waa inuu wax iska jaraa waa inuu wax bixiyaa waa inuu wax quudhaa tacaynkaasiya ayaynu aakhiro iyo adduun intaba ku liibaanaynaa kuna guulaysanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa dhibaatooyinkan ina saameeyey ee caalamkii meelo badan oo ka mida aadka u saameeyey gaar ahaan dadkii muslimiinta ahaa ilaahay jalla wacalaa inuu inaga qaado inaga kor qaado allahumma arfac canna albala ya rabb alcaalamiin صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.